dhinaca kale u leexan lahayd, dhanna ay dhimasho ahaan lahayd, dhanna ay naafo ay ahaan lahayd. laakiin allah muusan dhihin, ilaah ayaa nagu badbaadiyey, ilaah ayaana sababay in ay mucjisadaas ay dhacdo. alxamdulilah calaa kulli xaal. waxaan rajeynayaa insha allah, anigu waa ku cimro qaatay, waxaan rajeynayaa saaxiibada idaawanaya ayaguna inay ku cimro qaataan, ay ilaahayna ay u dhowaadaan hadduu alla idmo. xabaddu anuu markay igu dhahayso dadku waxay isleeyihiin bilaal ma dagaalamay, wax muu sameeyey, qofka muu arkay. maya, anigu meeshaan fadhiyey waa sii jeeday, xabaddu siday igu dhacday ogaal lama sii fadhine toosaan dhulka ugu dhacay. toos markaa dhulka ugu dhacay, waxyaabaha cajiibka leh ee aan ka xasuusta waxaa ka mid ahayd, xoogaa ogaalkayga wuu maqnaa, anigu maan ogeyn. mar allaala markii aan xoogaa aan mantagay dhiig iyo cuntadii aan soo cuna aan mantagay, waa gabar isoo dul istaagtay oo ashahaadkii ii qabatay, ashahaadkiiaan qabsaday. markii hore wax awooda maan lahayn, awoodaan yeeshay. ilaaha awood leh, awoodaan yeeshay oo aan ku hadli karo. ashahaadkiiaan qabsaday, ashahaadkii markaan qabsaday waan soo fariistay. maanan dhihin dadow ibadbaadiya, maanan dhihin halay badbaadiyo. waxaan afkayga ku qabsaday ashahaadka iyo ilaahayow ibadbaadi. waan fariistay, gabadhii ay soo dul istaagtay. kumanaan kun oo qofood waa idul taagneed, ma arkeyna ilaa gabadhaas mooye. gabadh fanax leh, xijaab weyn wadato, oo wejigeeda nuurka baxaayo, oo ashahaadka uun afka igu hayso, bilaal ashahaado, bilaal ashahaado, ashhadu an laa ilaaha illa wa ashhadu anna maxamed rasuul afka igu qabatay. almuhim ashahaadkii marka afku qabsada oo awooddii oo ilaahay isiiyey oo isoo fariisiiyey, oo aan gabadhii aan arkay oo laysoo qaaday, laysoo dhaqaajiyey. mar allaala markii aan isbitaalka aan imiday, mar ogaalkayga wuu baxaayey, waan soo laabanayey, waa baxaayey, waa soo laabanayey. mar walba waxaan ilaalinayey qalbiga iyo dareenka waalidkayga. waxaan isku dayayay mar walba aan soo nibdaaday inaan familka aan qanciyo, in aan hadal aanan dhihi karin aan iska qasbaayey. almuhim ugu dambeyn waxaa dhacday in dhiigjoojin la ii sameeyo, meeshii la iga talo, dan habeenkii xilli dambe qol la ii geeyo, maalinkii dambena qalin la igu sameeyo. waxa la yidhaha matooma meesha gashay, dhiiggiyaa laga soo shubay, tubaa la suray. alxamdulilah calaa kulli xaal. maanta heer waxaan marayaa aan socon karo, hadalkayga walow yuu badanin, laakiin aan hadli karo. alxamdulilah. cuntooyinka qaar aan la ii ogoleen, qaarna waa la ii ogol yahay. cuntada jilcana la ii ogol yahay. alxamdulilah. intaana waa ilaahay mahadii. maalinkii aan dhaawacmay tiraka 5 maalin waxba maan cunin, waxna maan cabaynin. faleen baa wax ku cunay, waxna ku cabaayay. hadalkayguna muusan badnayn, hadalka waa la ii diidanaa. maantana alxamdulilah waa hadli karaa, waana idin sheekayn karaa in badan. waxaana rajeynayaa insha allah inaad intaas aad igaga bogateen. waana idin mahad celinayaa dhammaan dadka wax soo diraayo iyo dadka sheergareynaayo ee meel walba gaarsiinayo. asxaab fara badanna waa rajeynayaa insha allah inaad gaarsiisaan hadduu alla idmo. waa mahadsantihiin. sharafi kalaam ايوه باكينا واحد مقال سو دو ايوه انسان سنه باشنتا علي دقيقه بلال تيم جامع ومعدسنتهي boqorada Puntland waa mahadsantahay dhammaantiin waa mahadsantihiin. تيم جامع libaaxa ku soo dirtay walaalka ajriya xasanaad Allah ka siiyo. boqorada Puntland awurka guudada u soo dirtana ajriya xasanaad Allah ka siiyo. جامع waa soo diray gaari guudaygiisa يا اوكي تيم جامع waa qof gaariga soo dir guudan. mid baan ku sheegayaa ayugo dad waxa jira saaxiib giftiga adiga ku soo qaldayo. marka dadka wax u sheegaynaa dhalinyaro idinku maasan bilaal ku dhufta in waxa laga yaabaa inaysan ka ahayn baa laga yaabaa sax ay garaneen. dhalinyaro hadiinan la socon waxa sameysaan waxa ku dhufanaysaan bilaal akoonkiisa meeshaas bilaal bishaar ku qoran tahay dhag waxa ku soo baxay giftiga marka ku dir. waan maasantiin baajina soo dhaw ajira door warka. الحمد لله بسم الله إله ما هذا السلام دعاء مقلسين صح؟ أنا هرتا سومالي هرتا مسنتين ميرل بقى جوكتان. أنا هرتا بلال بلشاوي وحا أسكوبرناي تيك توك أسكوبرناي وحا أسكوبرناي إله درتيسها أسكوبرناي
bilaal waxyaabo badan isla qabanaynay dhanka dadka haddaa caawinayno haddaa wax aruurinayno marka inta ka hor aqis waxaa dhacday markaa geeda lacagta oo aruurinaynay bilaal haweenuu isoo wacay asoo oyna oo ordaayo isoo waca wuxuu ugu dhahay ani waa dhintay hooyo iyo dadka kale gabdhaha guriga joogaan soomaali ii gaarsii idinkaa mas-uulka ah war waxaa dhahay bilaalow maxaa kugu dhacay markaasaa ugu dhahay waa lii dili rabaa dadaa isoo ceersanayaa markasaas ugu bas ilaaha ka badbaadiyey marka maasha allah marka suuxii kale waxaan dhahay maxaa haysaa adi hadda waa bixaysaa waddanka bilaawa ani horta aadaa ugu xumahay bilaal haweenkii xabadda ku dhacaysa gabaraa ii sheegtay waxay ugu dhahday nin how bilaalaa dhintay gabar kale waa la laawacay wiilna waa la laawacay markaasaa miir ugu dambaysaani marka saa noqday ma ogi haweenkii kale suuxii kalea miirkayga soo helay hooyadeeda igu dhahday maxaa kugu dhacay bilaalaa dhintaa dhee marka hooyadeeda bilaalaa dhintaa hooyadeeda dadka guriga dhan meeshii dhan waa jabigaa isbedelay anyway dee marka kale waxaa ogaaday inuu bilaal caafimaad qabo oo marka uu nool yahay hor safarkayga waa kasoo gaawiyey meeshuri waa joogay waxaana dee ameerika iska adaa saaxiibkayga dhaawacmay marka howl badanaa noo taashay anyway horta haddaan kasoo gudbo taas nihoo soomaaliya hadda bilaal dhaawac waaye muqdisho joogaa bilaal waa ogtihiin hooyadiisa asi keligiisa oo carari jiray aabihiisa waa ogtihiin inta ka hor wuu dhintay wuxuu ahaa dee wiil dhalinyara oo iska fircoon oo soomaalidaas u shaqeeyo qabiil aan ka saynin wax walba oo soomaalida meel walba aada oo aragteen ilaa hargeyso marka maasha allah horta ilaaha mahad iska leh maanta horta danaan haysaa bilaal maanta inta ma soo istaagi lahayn dee anaga haddaan wax fiican haysan lahayn because dee hadda bilaal waxaa rabnaa inaan meesha ka wadno turki inaan geeno sababtoo ah dee meesha xaaladeeda waa iska ogtihiin barnaamijkii darad uu ka badbaadaa weli iska jira saa oo maleenaayo ani fikradeyda midda kale dee caafimaadkiisana inaan ku dadaalno because waa madi oo hooyadiisa asaa wiil oo asaa u ordi jiray oo asaa guriga sayn jiray marka lacagta u baahannahay halmar u kale lacag oo waxaa u baahannahay dee aan ninkan iyo wiilka kale inaan meeshaas aan ku geyno oo waxaa markaas macquul gal aan samayno marka dhammaantiin horta waa mahadsantihiin qof walba meeshaan imaaday ducadiina horta bilaal meeshaan kusoo gaaray alxamdulilah ilaaha mahad iskale soomaali meel walba joogtaa u ducaynaynaa anagana markeena soomaalina waa mahad celinaynaa marka asxaabey bilaal hadeer anagu noo baahan yahay waa aragteen gaajuu meel ku seexin jira dhulku seexinaya si maamooyinkeena iyo ilmaheena oo wadanka korfaasan oo caawiya marka maanta maalintiis waaye waxaa idinka codsanayaa qof walba oo walaaltinimo inuu waxa ugu soo diro bilaal mise inaan ku caawino bilaal si walaaltinimo ah because adduunkan qof walba maalin ay soo maraysaa marka walaalkeena maanta maalintiis la joogaa insha allah dhammaantiina waxaa idinka codsanayaa inaa bilaal caawisaan insha allah waa mahadsantaha yaxbulukaadi mrs ceyley aada u mahadsan tahay miss ceyley abaayo thank you ilaaxa usoo dirtay walaalka sharafaa leedahay hal mar baan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan dadka giftiga ku taageeray bilaal nawaal baa u saraysa nawaal abaayo waa mahadsan tahay ajir iyo xasanaad allah kaa siiyo tiim jaamac sidoo kale adeer adna waa mahadsan tahay ajir iyo xasanaad allah kaa siiyo giftiga aad ku taageertay walaalka bilaal bushaawi miss ceyley adigana waa mahadsan tahay giftiga aad ku taageertay walaalka cidagale empire aad iyo aad aad u mahadsan tahay giftiga aad ku taageertay walaalka bilaal bushaawi cabdullaahi yare aad iyo aad aad u mahadsan tahay adigana inkastoo qaladay hase yeeshee waad ku mahadsan tahay wax walbood bilaal u samaysay cumar qalbi waad mahadsan tahay khamar qalbi waa mahadsan tahay giftiga aad ku taageertay bilaal bushaawi cutiyo waa mahadsan tahay giftiga aad ku taageertay bilaal bushaawi ajri xasanaad allah kaa siiyo huddo sidoo kale waad mahadsan tahay ajri xasanaad allah kaa siiyo bello diamond aad iyo aad u mahadsan tahay sidoo kale adigana kbb sniper waad mahadsan tahay iyo dhammaan inta kale ee sida walaalkood reer diini kibrey aad iyo aad u mahadsan tahay taageerida aad taageertay bilaal bushaawi 560,000 gifti ah baad ku taageerteen bilaal bushaawi dhammaantiin waa mahadsantihiin welina taageeradiina oo u baahan yahay midda kale dhalinyarada north america inta taraagirada ah hadduu alla idmacaawo waxaa qorsheynayna ani wiil laha xasan kaafi roberto wuu hurdayaa iyo ninkii lalahayo cabdimaalik inaa caawo dhammaantood isku xirxiro aa rajaynayaa qofkii gifti diri karin waxaa sameynay goofaankaasna dee meesha bilaal tiktokiisu saaraya malaynayaa inaan ku caawinaa rajaynaa insha allah dhammaantiina
horta ducada muhiim waaye qofka caafimaadkiisa muhiim waaye marka please and please game marka ciyaarayna 13 milyan 20 milyan 5 milyan aan bixin jirnay marka damaanta waxa la joogaa ya Soomaali ya walaal ya hooyo ya maxalla si bini'aadanimo maanta taas taaganahay please marka waxa idin ka rajaynayaa bilaal oo u qalmaade wax walba maanta u dirno codsi waaye waa idin codsanaya Soomaaliya maanta inaan garab qabataan please waa idin baryayaa marka qorshaheena idinka fulin kara ilaaha fulin kara horta insha Allah laakiin Soomaaliya idinka fulin kara sababta ducadiina inta lagu soo gaaray maalin walba u duceynaysaan oo ku xuntihiin I know marka please and please qorshaha ina idinka fulisaan idinka codsanaya marka please ana caawiya mariish waa maaqsantahay mariish baa iyadana timid oo gift u dirtay walaalkeed Bilaal Bulshaawi mariish aad iyo aad kaaga mahadcelinaynaa ajri xasanaad Allah ka siiyo giftigaad ku taageertay madaxweynaha TikTok walaalka Bilaal Bulshaawi marka yaxbul aan siina marka ha hadle baajino yaxbul aye aad ma santiin inta walaalkeen Bilaal Bulshaawi caawinaysa ilaahay meesha ka soo baxsan meel qeyb aan ugu bedelo marka Bilaal walaalkeen waa ka warqabtaan waa nin dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo walaalkeen oo dalka jooga oo in badan dad dhalinyaro caawiyay xilli adkaa la soo maray abaaraha naftiisa u huray marka waxaan niga codsanaynaa Soomaaliyeey adduunka waxa isku yahay aakhiraha isku ma aha waayo waa ka warqabtaan Bilaal inta macnaha uu sameeyay oo wanaaga oo walaalnimo iyo hooyooyin Soomaaliyeed oo dhibaataysan uu qabtay ilaahay wax qabta marka waxaan niga codsanaynaa maanta inaan Bilaal tusno walaalnimadeena iyo Soomaalinimadeena mid kale mid baan nigu darayaa qabiilada iyo waxaas iyo waxba ma taraan wax lagu diro tana maanta sadaqa oo iniga dhow oo walaalnimo oo ilaahay u dhawaanaysaan oo sadaqa oo walaalkeen Bilaal Bulshaawi aad ku tusi kadhaan walaalnimo iyo Soomaalinimo iyo jacayl iyo kalgacayl marka waxaas waxba ma taraan qabiil wax lagu diro tan oo kale aan walaal ma kaga faa'iideysano maanta Bilaal Bulshaawi walaalkeen intaas ka baxa ku soo dhow badshiimo dada waxa dhahayaan wiilasha magacooda hashayna ani Soomaaliya ka imaade meesha ka imaade dadka way garanayaan maanta hadduu Bilaal dhiman lahaa waxaan nihilaynaa ducadiisa mise taasiisa dhigayna laakiin maanta nisbanaag Bilaal uu nool yahay marka qofkana intuu nool yahay in la caawiyaa fiican insha Allah hadeer waxa ka baqna ma jirto sababtoo qof alaaba qofkii anaga oo horumarkeena oo wax noo sameeyay hadaan weyno mar walba xanuun waa ina iska dhimanaa fiican waxa ka baqaa hortaani ma lahan hadeer sababtoo Bilaal hadduu saan ku min lahaa maanta waxaan dhihi Bilaal waa dhintay so anyway ilaahay taasirta ma aqbalin ma dhicin marka please waxa idinka codsanaa dhamaantiina Soomaalida dad isjecel oo walaal waaye Bilaal iyo dadka kale Soomaali inta joogto qof walba qof uu jecel yahay wuxuu ku jecel yahay wanaaga isku jecel yahay walaaltinimada isku jecel yahay maanta waxa ogahay Bilaal hadduu lacag heen lahaa intuu soo fadhiisto waxa xanuunsanahay Soomaaliya wax isiyaam dhihileen mise waxa ay qabtaa laakiin maanta hadeer danaan haysta dhamaanteena ayub Carlo mise yaxbul hadduu awoodi lahaa mise ani haddii awoodi lahaa wax walba anaga qaadan lahayn laakiin maanta awood meeshaas inay soo gaarsiinayna oo maleynaya laakiin idinka wax walba Soomaalida ayaga wax walba Soomaalida waxa la dadka ugu fiican oo adduunka isku caawiyaan waaye marka please waxa idin codsanayaa meeshan hadda 500 600 marayna I wish inaan gaarno 2 milyan in ka badan marka hadafkeena san ku gaarno qof alaaba qofkii lacag heeyana waxa ka rajaynaa inuu Bilaal u tuuro qofkii Ameerika joogana marka GoFundMe la sameeyay hadeer aan lacag ma aruurinayo because GoFundMe ka sa ku direena aydan easy lacagtana asay u dhacaysa direct marka please na caawiya waa idin barayaa codsi iga tahay maanta idinka codsanaya please marka inaan caawisaan isku dayna sababtoo inkana ogtiin mustaqbal uu leeyahay kaagsi daran waxa xanuun igu hooyadiisa asaa u orday ani hooyadeeda ilmo badan ay dhashay laakiin sanin hooyadiis kaligiis u orday ka waran hooyadeeda marka darad u tagay waxa ani dhehaysa xasuustaa laakiin xanuun waxa igu Bilaal hooyadiis asi kaligiis u shaqeynayay haday maanta laagino hadduu ka fadhiisto is very sad aad xanuun badan tahay mise inaan weyno marka idinkan caawiya insha Allah tadri soo